waxaa maanta galay maalintii saddexaad ee shirka golaha watashi qaranka Soomaaliyeed ee shir gudoominaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasoo ay ka qayb galeen madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka laba qayb ayuu ahaa. Galinkii hore waxa ay madaxda golaha watashi qaranka ay kulan la qaateen ururada bulshada rayidka kuwaasoo ay ka dhageysteen talooyin la xiriira gaabisyada ka jira doorashooyinka iyo sida lagu sixi karo. Waxa markii ay kulamadaasi dhameysteen golaha watashi qaranku wuxuu u ballan qaaday ururada bulshada rayidka inay tixgelin doonaan soo jeedintooda. Kadib kulankii caadiga ay sii wateen madaxda waxaa laga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga doorashooyinka oo si aad oo qoto dheer looga hadlay. Waxaa kaloo laga hadlay arrimaha hufnaanta doorashada iyo waliba jadwaleynteeda. Runtii si saraaxad leh ay uga doodeen madaxda golaha watashi qaranka Soomaaliyeed kulankoodii maanta. Qodobadaasna way sii socon doonaan maalmaha soo socda. Had iyo jeerna waxaan shacabka Soomaaliyeed la socodsiin doonaa wixii go'aana oo ka soo baxa madaxda golaha watashi qaranka Soomaaliyeed. Runtii madaxdu markay dhageysatay qaybihii kala duwanaa ee bulshada oo shalay ay dhageysteen oo maanta ay ugu dambeysay bulshada rayidka talooyinka ay soo ururiyeen ayay si saraaxad leh ay u gorfaynayaan. waxaana la rajaynayaa in maalmaha soo socda ay go'aan rasmi ah ka soo saari doonaan shirkoodaasi. Laakiin marka la fiiriyo sida ay madaxdu saraaxad leh ay u doodaysay shirku wuxuu ahaa mid maartay is-afgarad badan oo ka muuqday isla markaana qodobada mid gaar ah loo qaaday. waxaana la rajaynayaa in qodobada ka soo bixi doona ay ka mid tahay in la waqtiyeeyo doorashada.